taageero ayaa maartay dadka ka heshay waxayna isleeyihiin midnimadu ay mid lagu guuleysan karo inay tahay hal sano idinkoon gaarin baaba waxa keentay khilaaf kuwa hadda wada socda soo misana bari ma kala qaybsan doontaan ma rajaynayo qaybsi dambe imanayo waayo tanada waayo aragnimo ku filan sababta waxa weeyaan nimankan sidan tegay waxay yiraahdaan dalkan aan xaara ka saarayna waxay saxeexeen in xaaran sideeda u joogto maqaawamadana ay saxeexaan in ay ka horjeedaan inay cambaareeyaan iyadoo xaaran sidoo joogto waxba looga ballan qaadin xaaran la ka kaxayn waxba in loo rag waxa ugu dhow waxa weeye 120 maalmood kadib marka la kadila ay kala ciidamo kale ajnabi la keeno ayaa marka Cabdullaahi Yuusuf xaarada weydiinsan doona iga tagay waa kii kan sidee baa la leeyahay weydiisanay maxaad idinku ku diidan tihiin inaad wada hadal wax ku daydaan yaa la hadlaa waxa dadkeen waxay kala dhaxayaan waayo ma xaarada waa dawladda ku meelgaarka waa Mareykan dawladda ku meelgaar ma jirto dawladda ku meelgaar ma jirto xaara u talisa oo haday mar dawladda ku meelgaar lagu magacaabay ma jirto xaara u talisa xaarana ummadda Soomaaliyeed waa taqaanaado ka sugumayso inay ama ka gar qaadato ama xaqaaga ku mariso marka xaara hadalkeedu waxba ma kordhinayo kuwa sanadii xaara u taliso in talada laga haysto waxa la wuxuu kordhinaya hadalka aad la hadashay ma jirto kuwan annaga naga tagay geed walba oo fuulay inaan soo la qabayno inaan soo celino in wax walba bilaaya dhagta loo saaray marka ma soo noqonayaan dad badan baa waxay qabaan xaaladu inaysan kaligeed iska imaan yani in gadaal laga riixay oo dawladda waaweyn ay maarta hawlku fushanayaan oo shaqada wasakhda ay yani u sii qabanayso bulldozer ay ka dhigteen arintaas wax ma ka jiraan mise waxa weeye waa rumor waa ka jiraan ma waa kala qayb galeen Mareykanku waa kala qayb galay markay dalka soo galayeen asal dhinac buu ka garaacay hadda ay ku jiraan meesha iyo gali kari waayaan ama intuu garaacabu yiraahdo argagixisa ku jirta meesha iyo gali kari waayaan wax ka tari kari waayaan ayuu garaacaya dadka xoolihiisa waa laynaya caruurtii baa lagu laynaya dadka inta la ilaahay xoolo dhaqato leh waxay ku leeyahay qof argagixisaan dilina markaas boqolaal Soomaaliya laynayaan xoolihi ka laynaya yani xitaa qawaanta caalamku ma ogola khasaare ka weyn wixii in la geysto hadda xitaa aad wax xawleeday aad gudanaysid in khasaarinta ka weyn bilaadku u geysato ma waxa soo dhanna waa iska indha tagayaan waa Mareykanku waxaad moodaa baawarka uu dunida ugu baawar badan yahay baa indha tiray marka ka ugu hadda uu mutawaxsan ayuu soo baxay Mareykanku dagaalkii waxaa moodaa inuusan dalkii oo dhan wada gaarin meel aysan maanta joogin lama arko dagaalka maxaa ku diideen inaad meel kastoo abxaaradu joogto inaan maartay maxay ka hortagtaa maxaa ugu koobteen meelo goob macayna kaliya meel kuma aan koobin meesha hadda ka suura galayso oo dadku ishabeeyay ama tababaradu ay gaaraan ama caynkaas way socotaa kullama ay sii joogto ama ay sii dheeraato Soomaalidana way sii fidaysaa muqaawamadu ama halka kuwa sii fidaya laakiin badanaaba inta iyada wax kordhinay kuwa maskaxda ka haysata oo kooranaya anagu Soomaali ma nihin oo iyada xageeda dagaalka ugu jiro badan baa jira ma waxa muqdisho ka dhacay kaliya hayay Puntland maalin dad Soomaaliyeed baa laga qabtay loo geeyaa Hargeysa sidoo kale maalin dad Soomaaliyeed baa loo qabtay Tigreega loo dhiiba wali horta xamar xoog bay ku qabsatay inta maskaxda ka qabsatay ka horeysay wali sidee bay ku shaqaysanaysaa laakiin waxa la soo gaari doonaa hadii alla yar su'aasha ugu dambaysa waxa weeye kuwa dhiibaya iyaga naftooda u dhimanaya naftooda kuwa dhiibaya dadka Soomaaliyeed inta Tigreega u dhiibaya iyaga naftooda ka u dhimanaya waxa isleedahay waxaan hadda dhacay waa iska yimaadaan baa leedahay mise waxa leedahay waxba sabab u ah mada anaga gaabinteena keentay waxa kan waxa wala gaabiyay bilaa ka soo qaaday isticmaalka iyo qoyska ka hadlayna sida wixii inaga isticmaalku uu sabab u ahaa dunida oo dhan bay saas ka dhacday laakiin haddana 40 sano in xor ahayn oo waxa laga soo kaban karin isticmaalka sameeyay waliga isticmaal lama eedayn karo haday tahay waxaan dambu sameeyay mooyaane wixii markii hore lama sameeyo laakiin mar walba waxba dhacay mar aqoon darha la oran kara iyo aqoon oo dawladnimo iyo waxa ilaa lagu cusba oo markii dawladii sibilka ay joogeen asar wixii dhacay ama wixii qaldamay marka madama aqoon darra jirtay waxaan isleeyahay dawladii sibilka tii ugu dambeysay ba qaladka weyn ee waxan oo dhan keenay dhigtay sababta waxa weeyaan waxay ku shaqeeyeen habay leeyihiin inama in rabno nimaan ahayn nimankii markaa madaxda ah inaan ogoleen in baarlamaanka soo gali dawladda ay bedeleen ninkii labaad ka ahaa Cabdulqaadir Sooba loo diiday inuu doorashadii inuu register gareeyo si loo doorasho isu taago
بالمثل كسوق قاد وتسأله هو ولا سوق قاد كرا مركا دولتي وقت جالس هيد وقت دبعتها كرا ما كان مركا دولتي بعد عمر العين من اللي بقى يضع علتها عن قبطي كو ملتري إنه سي مركا كمحرين إن مركا يروحون أكسن بوقبطي لكن هذا سيد عادة هانشرتي دنيس يو رضا بدن باسكان laga soo galay qabyaalad iyo waxyaabo laankaas dabadna asagina waa ka sii daray markaa oo uu ku warwaa la caamal caay jiray ama laga hortagi jiray ama laga hortagi karay in qofka hor yimaado xabad baa lagu dhufanayaa bay noqotay xukunkiisina markaa waa dheeraaday oo waa la kaaray aakhirkiina si xun baa loola dagaalay xuquuqdiina waxay noqotay in arrintii la gaarsiiyay meel laga soo celin karay yani nidaamka uu militarigu abuurtay baa wuxuu ahaa ummadii wuxuu ku abuuray is-aaminaad la'aan ummadii intay isu timaado sayn isaga qabanaa waa ka talin kari weydi qolo walba doonaysa in laga dagaalantaba iyada isku tashatay inta kale ka qarsato waxay sida hadda qad kala qarsato waa lagu ogaanaya aad u badheebaad ku dhacaysa markii la riday intii ka hawl gashay ridistiisa baa wada tashan kari weydi ilaa markii ruux isku bayogay dhibaatadaas markaa burburkiisaas ku yimid intii burburku markuu dhacayna ayaan daro waxa u badnaa dadkii gacanta helay ama jabhadaha samaystay dad aan laaqi u ahayn ama hawlihii aan ka soo bixi karayn wax yar baa wax hadday fursadda helaan dalka wadi kari lahaa ku jiray taasina dhibaatadii bay sii kordhisay algalaada lagu soo gaadhay dabadeedna ajina baa la wareegayba taladiiba iyo maskaxdiiba ajina baa la wareego ku shaqaysta haddaan laakiin isku soo dubduubo mushkiladda soomaalida oo dhan hal bay ka dhartaa dunida inaga kaliya ma burburin dowlada burburay afrikaan 20 bay gaadhay inta burburay dunida kaleeto bosnia soo qaaday bilmatil lubnaan baa jirtay afrika inta soo meelood dunida oo dhan waxaan waa ka dhacdaan in badan boqolkiiba 90 waa wada laga wada bogsaday dadka waxaas ku dhaceen oo ka bogsaday wuxuun la taaban kara isku hayaan qaar waa kala diin oo dhibaatada u keentay qaar waa kala isir qaar waa kala dhaqan qaan waa kala muxuu ahaayay waa kala luqluqo Soomaalida inta buu wadaagtaa hadana waxeedii waa xalin kari weydo ajnabigu waxa ka faa'iideystay marka waxba jira ay intaas oo dhan kaga liidato qabyaalad wayna gartaa qabyaaladii maxaa soo afjari kara waxa kale soo afjari kara oo shariicad laakiin shariicada nafteedii waxay u baahan tahay hawlgeliyaal yani dadkii maskaxdii iyo wixii kaliya yani quraanka ma taqaanaa oo kaliya ma kafaayana noqonayso quraanka akhriya kaliya oo bas qofku waxa sameeyaa aayadaas ay leedahay kafaayana noqonayso waxa loo baahan yahay hogaamin waxa loo baahan yahay maamul kadalik bil mithl marka ma xambulay macnaha hadii dadnimo aanay jirin shariicada dadka shariicadu waa wanaagsantahay waa okay waa waxa iyada kaliya anigu saas oo aan aaminsanay wixii Soomaaliya lagu dhaqayo dhan baan ogaa waxa kaliya markuu markii lagu hogaamiyay afjaray wixii oo dhan soo afjaray oo dadku way macnaha ka mid ah wixii dadku raaco oo dadku ogolyahay baa dhismaaya isticmaalka waxa jiray in xasaab u adeegsan jiray ama qabaayil u adeegsan jiray ayaa jiray marka daakhiliyada la qaatay waxa dhacday baa la yiri wax la yiri xalal dalay hal iscafiyaalay kii dambiga galay oo dadka ka galay iyo kii laga galay hadda marka waxay ku socotaa sidii oo kale ma filayo sidii oo kale dhici doonto aan filayaa in qof walba waajibkiisa la marin doono inkastoo ay u baahan tahay in laga feeyigaado aan wax kala argos la yiraahdo aanay dhicin laakiin dambi aan la wadaagin macnaha aan weynaan dambigu noqon macnaha bilmatal weynaan wiila u xujoobi karin aabihi ama walaalkii laakiin shakhsiyaadka dambiga galay anu ma qabo in la saamaxo mana filayo in la saamaxi doono
نبي